safiirka dawladda Soomaaliya ee wadankan Turkiga ayaa kormeer waxa uu ku tagay qaar ka mid ah isbitaalada ay ku jiraan dadka dhaawaca isla markaana dhaqaatiirtu ay la tacaalayaan bukaanada qaar xaaladooda waa ay soo hagaagaysaa halka qaarka kalena ay xaalad adag ay ku jiraan sida ay ka warbixiyeen dhaqaatiirta gacanta ku haysa bukaanadan. Ayrılmış, kopmuş sağ bacağında. Orayı yapacağız. Kalçasındaki şöyle kalkmış. Deri alıp kapatacağız. Orayı dhaawacyada caadiga bulshada iyo waxaas iyo ilaa hadda wala tacaalan meel fiican oo maraysa macnaha hooshtaas normal waaye laakiin waxa jira meel badan hilibka ka go'san yahay meelahaas oo dhay ilaa iyo hal isbuuc oo maalin qaadanaysa inaan ka shaqeyno macnaha. Gabadhan waxaa loo diyaarinayaa qaliin waxa ayna la ooynaysaa xanuun haya dhaqaatiirtuna waxa ay amar ay ku bixiyeen in aan wax biyo iyo cunno aan la siin karin inta qaliinka ay ka marayso. maadaama amaliyad lagu sameeyay waxaan cuni karto waxaan macali kartaa caafimaadkaaga laga shaqeeyo noo sabra. Ambassador Jama Abdullahi Mohamed ayaa booqday 3 isbitaal waxa uuna dhaqaatiirtu mid uga dhageysanayay xaalka bukaanadan ay ku jiraan ardayduna waxay ahaayeen kuwa ka turjumayay. hada meesha waxa ka qadin infection ya xasmo galay la ka dawada daaweynaya in gacanta jarana yani possibility wajtan Saciid Abdi Jelle niyo ninkaasi waa rag ugu darna horta uu guban yahay labada lugood buu guban yahay dhinaca bidixna uu guban yahay indhahana wax kama arkayo oo shucaab ah kaga jira waxa soo raaca Saciid Safir waxa soo raaca uu qabo gacanta waxa ka galay halkaas intii wax nabar ka galay uu dhinaca kale uga baxay. safiirka intii uu ku gudi jiray booqashadiisu ayaa waxa uu mid ula kulmayay ehelka bukaanadan la socday waxa uuna u balan qaaday in wax walba ay wanaag iyo waliba caafimaad ay ku dhamaan doonaan. safiir Jama ayaa warbixin iga siiyay xaaladda bukaanadii uu isbitaalka uu ku soo arkay. guud ahaan horta Ankara markii hore waxaa dad badnaa magaalada kale laakiin hadda waxaad moodaa in qofka culus ba Ankara loo soo rarayo. maanta aynu joogno dadka badankooda Ankara ay joogaan u qaybsan yihiin 4 isbitaal oo kamid ah. qaar ka mid ah bukaanada ayaa xaaladoodu waxa ay tahay mid aad u liidata waxayna ku jiraan qaybta emergency-ga ama gargaarka degdega ah sida uu sheegay Ambassador Aideed Ismaaciil Ibrahim Maxamed almost ninka 35 patient meesha inoo jooga ninka ugu daran ugu culus Ismaaciil ninka asmaha looma geli karo sababtoo isaga waxay ku hayaan intensive care unit laakiin waxa uu si dheer ilku hayn joogta. jaaliyadda ku dhaqana dalkan Turkiga ayaa xilligan looga fadhiyaa inay is-abaabulaan si dadkani loo garab istaago maadaama ay ku jiraan xaalad adag. safiirka ayaa baaq wuxuu u diray jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool wadankan Turkiga. dadkan halkan jooga baahi badan bay qabaan qof kasta waxa la socday qof ehelkiisa kama soo talagelin dhar bay u baahan yihiin baahi kale qabaan deegaanay u baahan yihiin ardayda laftigoodu transport iyo dad magaalooyin badan arday badan magaalooyin badan ka yimi baa ku jira dhaqaale loo baahan yahay shaki ma leh. marka waxaan bulshada Soomaaliyeed ee Turkiga degan ugu baaqayaa in ay walaalahood u soo gurmadaan oo iyagu ay magaalo walba gudi ka sameystaan gudi guudna sameystaan sida bulshadu baahida u kala jirtana iyagu ay u maamulaan. dawladda Turkiga ayaa har iyo habeen waxa ay la socotaa xaaladda bukaanadan waxayna dhaqaatiirta gacanta ku haysa lagu amray in ay dadaal dheeraad ah ay ku bixiyaan dhaawacyadan sidii uu u soo hagaagi lahaa iyadoona safaaradda Soomaaliyeed iyo waliba ardayda Turkiga wax ka barata ay door wax ku ool ay ku leeyihiin la socodka bukaanadan ku jira isbitaalada kala gedisan ee ku yaal magaalada Ankara. سلمان جمال سعيد TV عالمي يونيفرسال مقالة أنكرا.